siyada ay gasho aysan horkeenin baarlamaanka shakina ka muujiyay sida ay wax u wadaan madaxda talada dalka haysa heshiis kasta oo la soo galaayo waa in baarlamaanka la geeyaa ilaan codka shacabka baarlamaanka ah labada gole in la horgeeyo oo la yiraahdo dawladdu heshiiskaanay soo gashay maslaxadaanay ka aragtay dantaana ugu jirto saan waaye ama waa caalami oo waa ku qasbaneen inaan maxaa ka mid noqono caalamka waa in loo sheegaa male wixii la soo galay waa shib dacwadan iyo buuqeeda iyo wixeeda waa iska sheegida heshiisyo hoose ma jira oo hore loo galay ma jira oo dadka loo sheegayna war maxaa la qariyoha mustaqbalka ummadan qaris ma galo la gambasho ma galo ka heerid ma galiyo hore ha loo soo socdaan leenahay muxuu ahaa yaanan marna dib looga dhicin galmudug full of surprise waxaa looga fadhiyaa hawl full of surprise ah ayadan inay la yimaadaan dardaaran ayay naga tahay inaad la timaadaan hawl miiqaam iyo miisaan leh oo galmudug baahideeda soo dhamaystirta meeshaan ciyaar ma taalo sheeko ma taalo maal raadis iyo waxaana waaba la iskala soo tago waa arki kartaan hawsha meesha marayso waxaa loo baahan yahay wax la taaban karo in la qabto waxaan soo dhaweynayaa baarlamaanka kal fadhiyadeeda xildhibaanadii naga maqnaa oo dib noogu soo laabtay waxaan leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada baarlamaankiina gudoonkii aad doorateen madaxweynihiina iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo golihii xukuumadda oo idinka aan ansixiseen ku soo dhawaada waxaan kaloo ayagana soo dhaweynayaa xildhibaano cusub oo ku soo biiray oo xildhibaanadii ka tanaasulay volcano ku dhawaad 500 askari oo ka tirsan ciidamada kumaandooska Soomaaliya oo lagu soo tababaray dalka Turkiga ayaa dib ugu soo guriyo noqday Soomaaliya iyagoo soo faa'iiday xeelad dagaal mid difaac tababar maskaxeed iyo mid jir ahaaneed ciidamadan kumaandooska oo ka soo degay garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa soo bandhigay gaardi iyo dhoolatus cajiib ah oo ka turjumaya wixii ay ku soo barteen dalka Turkiga waxaana la qorsheynayaa inay qayb ka noqdaan qorshaha argagixisada looga xoreynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin Soomaaliya taliyaha howlgalka tababarka ciidamada Turkiga Sareeya Guuto General Goren ayaa ciidamada kumaandooska ka hor yiri sizlerin sayesinde Somali gençler çocuklar ülkelerinde ururka saddexaad ee qiimaha badan ku soo dhawaada dalkiina tababar tayo leh oo kumaandoos ah ayaad ku soo qaadateen isbaarka aqoontan aad soo حبور أوكي وشن halka cusbitaalada degmada Doolacado loo dilacsiiyay darajada cusbitaalka guud xarumaha caafimaadka Ableele iyo Qabri Bayax wuxuu isboodu marayaa 75 waxaana loo dilacsiiyay darajada koowaad halka mashruuca shaybaarka guud ee caafimaadka Regional Health Lab ee magaalada Jigjiga uu marayo 43 waxa 100% eebiyay qolalka qaliinka 6 cusbitaal ee kala ah Garbo Shilaabo Awaare Booq Qalaafo iyo Gorobaqaqsa sidoo kale wuxuu dhamsmahoodu socdaa qolalka qaliinka ee Hadagaala Dhagaxle Marsin iyo Jigjiga dhismaha 12 xarumo caafimaad ee Balicad Bohola Caws Bohola Aweys Harawa Cobasha Darguduud Jigjiga iyo Xoob Abaaqoro Shabeelle Xaarisa Anano iyo Harashagax ayaa waxay ciisahan kala marayaan inta u dhaxaysa 60 ilaa 95 inta uu daageenkeenu jiray waxa markii koowaad hal mar la dhisay 28 xarumo caafimaad oo laga fulinayo dhammaan 11 gobol ee deegaankeena uu ka kooban yahay waxa 100% dhamaaday balaarinta goobaha caafimaadka Rabaso Cadaadle Qondi Harta Sheekh iyo Dadamane waxa sidoo kale la dhameystiray rugta caafimaadka jiilka labaad oo lagu hirgelinayo tuulada Dibiley waxa gacanta lagu hayaa balaarin lagu wado 10 goobo caafimaad oo kala ah Mayambuluqo Caleen Erer Darwanaaje Xamaro Mustaxiil Feerfeer Weydkaal iyo Hara Arba halka 12 ruga caafimaad ee Guris Goysino Jaamuud Kabixalan Kookay Karim Bilcinle Liila Falataag ama Isgoys Garasley Janno Taban Qolaji iyo Dunyar laga wado shaqo muhiim ah dhinaca kale waxa la dhameystiray hoyga shaqaalaha caafimaadka
guryahan oo ay tiradoodu dhan tahay 15 waxaa laga dhisay Cawsbuli, Durwaale, Bulaale, Ayinle, Barmiil, Urmadag, Baarguun, Talaad, Qorile, Higlooley, Laasocaano, Ceel Buur, Jaara, Haysuftu iyo Balicad. halka guryaha shaqaalaha ee laga hidda Shaakiso, Godgod, Qooxle, Jeerinka, Hidiinta, Goljanno, Bukudhawo, Abokor, Cayuun, Maramayd, Malkasalax, dibdejinta Mille iyo Gebi uu meel fiican marayo. ka shaqaysiinta iyo tayeynta goobaha caafimaadka 9 bilood ugu dambeysay waxaa laga shaqaysiiyey 119 rugo caafimaad si ay bulshadu ugu adeegaan halka 4 xarumo caafimaad ee Balicad, Abokor, Dulqabow iyo Qabri Dahar la qalabeeyay. Cusbitaalada, xarumaha iyo rugaha caafimaadka waxaa lagu meeleeyay cudud shaqaale oo dhan 1422 xirfadle oo isugu jira 43 dhakhaatiir, 450 digrii ah, 462 diblooma iyo 467 shaqaalaha fidinta caafimaadka. xirfadlayaasha caafimaadka ee ka howlgala cusbitaalada, xarumaha iyo rugaha caafimaadka waxaa lagu guuleystay in si siman loo siiyo kaltanka habeen dhaxa ama duty per hour in la siiyo. 93 gaadiidka gurmadka degdega ayaa waxaa loo qaybiyay degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka si loo hagaajiyo caafimaadka bulshada. xoolo dhaqatada xukuumaddu waxay xoojisay adeegga kooxaha caafimaadka wareega laga dhigay 44 kooxood. saldhigga keenay wax badan oo sugnaysa oo sugnay weynoo timid gudoomiyihii iyo agaasimiyaha waxay wada galeen xafiiska aan banaanka liga tagay. markii banaanka liga tagay way soo wada hadleen. agaasimihii warbaahinta gaarkaas soo baxay yiri ayadoo aan la horgeynin wixii liigu dharbaaxay iyo sababtii meesha liga keenay ayadoo aan lii sheegin banaanka lii soo saar sidii aan ku soo baxay. loo xalin lahaa cudurkan coronavirus COVID-19 war amuurtaas ku saabsanna nala daawada. inta badan waan ka warqabnaa wad ogtiin maaragtay dadaalo badan baa socday. dadaalada badan ee socday waxyaabahan istusna waxaa kamid ahaa wacyigelinta meelaha aan isleenahay gaabis baa ka jiray. waxaa kamid ahayd cilmi adduunka shaqada way wadeen, odayaashu way wadeen, laakiin haddana waxaan leenahay hadday sii dardargeliyaan meelo badan ka muuqdaan odayaashu iyo cilmi adduunka si fiican lahayd. marka meelahan isleenahay gaabis baa ka jira xagga cilmi adduunka iyo odayaashu bal inay deegaanku jijiye kaliya maaha inay deegaanka gobolada iyo meel walba fariimo badan iyo siyaabo badan ay u isticmaali karaan ama ma noqoto ha noqoto idaacadaha iyo tviyada ha noqdaan bal siday uga qayb qaadan lahaayeen iyo dardargelin wey. wax weyn hadda soo nimid meesha in xanuunkan laga diyaar garoobo wacyigelin badan oo maaragtay u baahanaa in meel badan la gaarsiiyo odayaashu ka qayb qaataan. ujeedada labaad kalena waxa weeyaan ciidii Ramadaan baa nagu soo dhow oo iyadana insha Allah go'aano ay dawladdu ka soo saartay si guud xaaladda degdega ee waddanka jirta iyo marka la fiiriyo xaaladdan khaasatan xanuunka cabsi badan inaga nagu hayso xuduudda maadaama meel xuduuda u dhownahay dad badan oo xanuunka laga helayna xuduudda ka soo galeen. ciidda bal diyaar garowgeedii iyo idinkana koo wacyigelin aad ka haysataan go'aanada dawladda qaadatay ciidda inaan lagu tukanin goobihii loogu talagalay oo lagu tukado maaragtay xaafadaha lagu tukado inay gacan ka geysataan oo masaajidada cidhifyada magaalada ku yaala iyo masaajidada goobaha maaragtay qaarkood si aan loogu tukanin oo dhibaatadan uga badbaadno idinkuna wacyiga inaad ku baraarugsanataan. gudoomiyaha xisbiga barwaaqo ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Shaale oo dhankiisa ka hadlay ayaa waxa uu yiri sida tan. waxyaabaha ugu muhiimsan ee hadda dalka iyo deegaankaba ka jira waxaa ugu horeysa arrinta dib u dhigista doorashada iyo COVID-19 cudurkan caabuqa. xisbi ahaan waxaan ku dhawaaqnay doorashada inay habboon tahay in waqtigeeda qabsoonto. guddiga doorashooyinkana dib u habeyn badan baa lagu sameeyey inay shaqooyinkooda qabsadaan. waxaa la soo saaray xilligii doorashada jadwalka lagu qaban lahaa. annagu xisbi ahaan waan ku diyaar garownay in xilliga ay doorashada ku dhacdo. ururada qaar ee tartamayaasha heer qaran iyo heer deegaanka qaar ka mid waxay xilligaad ku tala bixinayeen doorashada in dib loo dhiga waxayna sababo ka dhiganayeen barakacayaal badan xaaladda nabadgelyada oon deegaanada qaar aan saxsaneen maadaama arrimaha taagayeen doorashada in dib loo dhiga ku tala bixinayeen. laakiin annagu xisbi ahaan waxaan soo jeedin doorashada in xilligeeda ay qabsoonto iyadoo xaaladda lagu jira. waxaa dhacday in cudurka caabuqa markuu bilowday guddiga doorashooyinka ay soo jeediyeen 50,000 oo xirfadlayaal oo tababarka qaban lahaa inay tababari kareenin. hay-adihii deeqbixiyaasha inay wadamadooda ay ku go'doonsan yihiin waddanka iman karin in shaqaalaha lagu qasbinaya xaafad guryahooda joogaan sababaha awgeed inaynay doorashadii qaban karin bay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka. golaha wakiilada shacabka ay soo jeediyeen. arrintaa markay soo baxday kadib
inaan cudurka la qaban karin xilligiisii cudurkana ilaa ay maanta la joogo dabeecadiisa rasmiga iyo wuxuu yahay lama yaqaan xilli intee lagu joogi karaan cid taqaano male wadamada aqoonta iyo cilmiga sheeganay baa la rafaadsan waxbay ka qaban waayeen ilaa hadda way la tacaalayaan annagu dee wadan aqoon ahaan dhaqaale ahaan hooseyna saameyntiisa waxaan ka badbaadi karnaa keliya waxaan si kartay ka hortag iyo tallaabooyin muhiim ah in la qaato taas waxay ka liftay in cudurkan xaaladii caadiga ahaa aynan lagaga jawaabi karin in loo baahan yahay in lagu dhawaaqo bayaan xaalad degdeg ah golaha wakiilada intaynan sixin ka hor golaha wasiirada ansixiyey kadib golaha wakiilada loo gudbiyey oo sida dastuurka dalka uu sheegaya bil ka hor bisha maskaran bil ka hor in la qabtay doorashadii guud ee dalka muddaxiliyeedka dowladdu uu dhamaanayaa cudurka caabuqana tacaalkiisa lagu jiraa wadankana xaalad degdega buu ku jiraa dhowrka arrimood sidee lisu waafajiyaa fikir rabaa soo baxay waxna waa xog oo xogta in lala socdo oo wadanku xag uu maraya iyo dhibaatooyinka iyo waxa jira in lala socdo waxna waxa weeye waxa soo socda waxyaalaha ugu badan ee ugu muhiimsan ee odayaal iyo cid walba ay inay ka qayb qaadato ah saameynta cudurkan uu keenayo ee dhanka dhaqaalaha bulshadeenu saynu ognahay waxaynu soo saarano ma cunno oo wax dibadaha laga keenay adduunkiina hadda